warsorry waa Soomaaliye waan salaamayaa maanta waxbaa idin sheegayaa runtii dadku Soomaalida badankeed inay doqomo yihiin ayaan dar badankeed dadku waa doqomo weeye dadkeenu waana waxa keenay sidaan hadda u egnahay inaan u egnahay dowlad ahaan iyo dal ahaanba waan idin cadeynayaa Trump wuxuu sheegayo inay run yihiin oo caqliga dadka Soomaalida inayna adeegsan oo caqligooda uu yar yahay salahan dumarku aad bay doqomo yihiin waxayna doqomo ku yihiin naagaha Soomaaliyeed aabahood baa hooyadood ayagoo caruur badan ah ka cararay waxay soo koraan hooyadood oo korinaysa ilmihii ayagoo caruur ah oo aabahood ka tago aabba la'aan ah ilmihii bay biilaysaa ilmihii bay la tuugsanaysaa ilmihii bay la balanbalaysaa majority-ga hooyooyin baa koriya haddana naagaha isla nimankii cararaya ay ogeed inay ilmahooda ka cararaan bay ilmo u dhalaysaa way guursanaysaa isma dhahayso oo hooyadaa uu ka cararay aabaha nimanku way cararaan way baxsadaan caruurtu ma koriyaan adinkaa balanbal iyo tuugsi kusoo koray maxaa uga baahantahay inaad ninkaa noocaana aad ilmo u dhashid oo aad guursatid oo areer la samaysatid ilaan qofkan qof aabaha ma aha qof laga sugayo aabaheed wuxuu sameeyey buu samayn doonaa ilaan waxa ay yaqaanaan oo sameeyaan waa waxaan aabayaashu markay baxsadaan ma jiraan inay ceebaystaan nimanka kale oo ceeb u arkaan oo ninkii baxsaday lasoo qabto oo la dhaho ilmahaaga korso ma jiro laskuma ceebaya dhaqanka soo gabadhii nimanka baxsanaya oo dhaqamada bay caruur dhalaysaa way gaboobaysaa way falxumaanaysaa ilmihii qaybbaa si u korinaysay dhimanaysaa ilmahaasna way cararayaan isla nimankuna inay doqomo yihiin hooyooyin baa koriyey nimankii aabayaashood way ka baxsadeen isma oranayaan war aabahaa inuu kaa baxsado adaa ku rafaaday oo aabahaa kaa cararo aabba la-aantu way xun tahay ilmahaaga inaad ka carartid uma baahna ilmaha haddaad naag korsatid inaad ilmaha dhashid inaad ilmaha korisid baa u baahanta haddaad naag guursatid ninku kuma fakarayso ninkii naagta soo maartid labadaba inayna caqli lahayn waa zero way wixii ayaga ku soo dhacay kama badbaadin karaan caruurtooda caalamka kale ayaga waxa ku soo dhacay dadka waxa ku dhacay ilmahooday ka badbaadiyaan inaysan ku dhicin inuusan dareemin waxa uu dareemo oo xanuunka ahaa hadduusan ilmihiisa ka badbaadin karin ma rabo inuu ilmo adduunka keeno qofku wuxuu leeyahay anaa adduunkan ku xanuunsaday aabba ma helin dowlad ma helin colaad baa arkayay dad baa dhimanay ilmahayga marka ma rabo inay waxaa arkaan ma ay dhalaan ilmo waxay rabaa inay jiinkooda ay rafaadiyaan ilmo ay ka farxamay ma rabaan soo dadkan waa dad doqomo ah bay majority-ga Soomaalida u badan yihiin mar kale aan ku tusay inay doqomo yihiin tusaale ahaan oo kale ee aad doqomo u yihiin ilmahooda inay ka cararaan keliya ma ahan asaga aabihiis iyo adeerkii yacni dadku ku xeersanaa ninka Soomaaliga waxay isku dilayeen meel ceel oo biyo ah markay xoolaha lahaayeen aabihiis baa dhintay dadka ku soo hareysnaa baa dhintay kuwa jiilka kaca oo hooyooyinka ay ku soo koriyeen aabalaanta oo agoonta oo biyaha isku leynayeen markay koraan isma dhahayaan solution xal la imaada maarayn la imaada inaan biyo mar dambe iyo ceel la isku dagaalamin oo uusan qof u dhimanin biyo la isku dagaalayo oo si biyaha iyo kheyraadka loo wada wadaago samaysta sharci ah isla wixii aabihi ku dhinto buu ku dhimanaya ilaa waa doqon wuu dhimanayaa mid kale dilaya kii aabihi dilayna kii dilaagina aabihiis qof wuxuu ku dilaa isagoo biyo ka xoogaya wixii aabihi ku dilay buu ninku dilayaa caqli ma lahan ay ku soo afjaraan waxaan waa doqomo weeye islaan mar kale aan ku tusaya dhinaca naagaha inay doqomo yihiin naagaha waxay soo koreen ayagoo la gudayo waxaa laga yaabaa familkooda inay u soo dhimatay gabar la guday oo dhiigbax u dhimatay oo ay rafaaday walaasheed baa dhimatay waxay soo ogeed ayadoo walaasheeda ka weynayo hooyadeed ilmaha markay ina dhali kareen oo ay toltolan tahay oo waxaan ay samaynayaan waxun inay yihiin isma dhahayso ilmaha ha ku samaynin ilmaheedii bay ku samaynaysaa again waxay ayadu kusoo rafaaday ilmaha ay ku dhali weysagii la jeexjeexayay hilibkeeda qayb la goostay
ayadaa samaynaysa waxay ku leedahay dadka dhan baa sameeya buu leedahay isla doqomay inay yihiin waxa dadku sameeya bay sameeyaan garaad kale waxaan muxuu yihiin mise waa fiican yihiin male kuwa haddaanay daawan doona waxay oran doonaan adiga baan asturnayn dhar ma qabtid sida hooyooyinkan dharka u qabid maxaad sheegaysaa sida dharka hooyooyinka u xiran jireen uma xiratid dharkaan aan qabo waxay la tahay inaan qaawanahay waayo wax kasta oo qof ka horreeyey sameeyey ama ha ahaato dhiig daadin ama ha ahaato in la soo dilay ama ha ahaato inay tuugan yihiin oo wax ay kala xadaan ama ha ahaato inay isgudaan oo isjarjaraan ama ha ahaato dharka qaabka u xirtaan intaasay yaqaanaan intay yaqaanaan keliya bay ku dhegan yihiin waxay ku hayaan waa inaan waxaa sameynaa wax walboo fiican war waxaan waa xun yihiin waxaa loo baahan yahay inaan ka tagno wuxuu yaqaanaa gaalnimo in la gaaloobay bay u arkaan haddaad dhahdid war ilmahan ninkuu kaa cararaya inaa ilmo dhasho uma baahnid maxaa uga baahanta inaa ilmo dhashid haddaa ilmo dhalaysa dadyooga kale oo ilmaha kula korsada ka dhal waxay leedahay hooyaday baa saa ahaan jirtay rafaadkii hooyadood ku karisay iyo inay tuugsanayso oo meel ay fadhido ooyeysay waxay u aragtaa waxa keliyoo la sameeya ilaa caqli ma lahan ee dhihi karto waddadaan ka bax waddo kala qaado waddadan waa waddadii familkiina kusoo rafaadeen maanta baan arkaya naag dhehaysa aabbahay wuu dhintay hooyaday gaaribaa aabbahan wuu dhintay 12 annagoo abay na korisay adeer la soo koriye male dowlad la soo koriye male hooyadeed baa tuugsanaysay oo rafaadaysay ayadii baa 10 ilmood nin u dhashay 6 gabdhood iyo 4 wiil tayn bay haysaa ayada baa hadda tuugsanaysa hallay caawiyo ibay leedahay reerba maalin baa dharka u dhaqaabay leedahay 10 ninkuu iskaga baxsaday ninka baxsaday oo cararay nin baa naagta ka duubaya tuugsiga caadi buu arkaa wuxuu leeyahay hooyo Soomaaliyeed baa ilmihii laga cararay ninkii wuu ka tegay caawiya walaal waxa duubaya waa nin waxa baxsaday waa nin ninkii baxsaday ma raadinayo male war maxaa ilmaha uga baxsaday kaal ilmaha korso ninkaa la rabay inuu fiideo ka soo duubo oo la dhaho ilma aad dhasho oo 10 oo aabba u tahay oo la rabay aad kurisi baa ka tagta oo la dacweeyo inay hooyadu ilmaha tuugsi buu la raadinaya naagti wuxuu noo soo gudbinayaa naagti ooyeysa iyo ilmaheeda uu leeyahay Soomaali kaalay caawiya wuxuu soo koray adeerkii iyo walaalkiisoo hooyadii markuu aabihii cararo ay la tuugsi tagaan oo la doonayn iska baqayaa ninkii qofkii la rabay waxa inuu la shaqeeyo labada qof oo la rabay ilmaha adduunka inay keeneen u wada shaqeeyaan ayaa mid looga cararaya kii ka cararana kuwa kaloo u soo hiilinay hiil waxay u arkaan iyo gurmad iyo degdeg inuu la tuugsado magaalay hala soo caawiyo illa dhaho markayna taleefanada Yurub iyo waxa ayna jirina ninbaa gaariga intuu ku qaada naagaha meelaha geyn jiray la tuugsan jiray intay soo tuugsato buu qayb ka qaadan jiray haddana ama masaajid baa u furnaa oo way la tuugsan jireen intaasuu qayb ka qaadan jiray ninku waa nin tuugsiga ku nool asagana hadda kan soo sawiraya ilaahay magaciisa tuugsiga ku noolyahay inta ayadu soo tuugsato oo naagta la siiyo buu wuxuu ku leeyahay 10% nin walba oo dumarka tuugsanaya keenan beeniyaha wuxuu ku leeyahay 10% buu ku leeyahay 10% ku hadeena ka badan baa ku lahayn waa xeer ay digsadeen tugsadayaashu inay qaybtooda leeyahay waa khidmad baa loo yaqaan afka carabiga khidmadda iska soo bixi ayaa la dhahaa waxa kugu soo gabagabanaya doqomay inay yihiin sanad walba abaar baa ku dhacda oo aabihiis hooyadiisoo cararay ayuu xoolaha dheese waa naga dhammaaday ilmaha xoolahana way ka dhammaanayay ilmahana gaajo ugu dhimanaya abaar male abaartii reerkiina laysay yey sanadkan idin laynin caqli male abaarta way sugaan ma garanaysaa sheekada abaarta fideoga go-ayee meelo badan baa idinka tusayaa wallaahi Trump wuxuu sheegaya waa caqli ma laha dadku caqliga aad buu uga hooseeyaa waa bulsho aan garaad lahayn inaad doqon ahaatana haddaad siday doqon u yihiin aad doqon u hayna waa adaa lagu dhibaataynayaa 100 magac baa lagu samaynayaa mahadsantihiin